الظالمين إلهي ظالمين تواتميا أواك أميا توحيدك ورقبته إلهي كعبصبا warjoojiya heesaha iyo cajalooyinka aad maqrib walba wadataan oo aad kala amaahsanaysaan ood kala qaadanaysaan ood soo ijaaranaysaan joojiya oo ilaahay ka cabsada gabar ayaa jiri jirtay aad iyo aad heesaha u jeclaan jirtay mar walba heesaha ayay dhegaysan jirtay mar walba heesaha ayay samaysataa waxay daarataa cajalooyinka heesaha fanaan ma jira ilaa way xifdisay magaciisa iyo meesha uu ka yimid iyo goorta uu orintaa iyo waxyaabaha sameeyey hees ma jirta ilaa laxankeeday taqaanaa waxyaabaha iyo sida looga laxmiyo ayay taqaanaa dhammaan aad iyo aad ayay u jeclaan jirtay kushiinka markay ku jirta ama madbaqa ayay heesaha qaataa ama daarataa guriga markay xaaqaysay samaysaa waa in badan oo gabdhaheena ka mida sida ay maanta yeelaan akhiiran iyo gabagabadii ayaa gabadhii sakaraadka ku soo xaadiray waxaa la gaaray waqtigii ajasha camal fiican inay samaysataa fiicneed ma samaysanin rabbigeed inay wax u horumarsataa fiicneed uma horumarsanin rabbi ayay nacdo fanaaniintay jeclaatay qur'aankii kalaamka allay nacday heesahay jeclaatay fiiriya sida alla ku abaalmariyey subxaana wa tacaala gabagabadii ayaa lagu abaalmariyey in sakaraadkii soo xaadiro dadkeedii ayaa u soo aruuro meeshaa laysugu yimid culimadii ayaa timido waa ag fadhiisteen kelimada tawxiidkaa loo laqimo waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah dhe ayaduna waa kari weysay laa ilaaha ila allah qofkii ku camalfali jiray oo raaci jiray oo yaqaana macaanideeda iyo shuruuda ay wadataa ku celceliya marka uu sakaraad yahay amaa axad heese ka caado dhigtay filime iyo aflaan ka caado dhigtay riwaayado iyo kusheertooyin ka caado dhigtay iyo inuu masrax mar walba gala uu daabado laa ilaaha ila allah dee u dhaha waa waxaan suuragal ahayn gabadhii waa sakaraad oo nafteedaa la soo aruuriyey jilbahaa laysugu keeno waa laga soo qaaday ma kari karta inay rikoor dambe heese ku dhegaysato ma awoodi karta inay mar dambe baxda ay siidiyaha ka soo qaadato cajalooyin heesa ah maanta wixii ka dambaysa adduunkay ka rawaxaysaa aakhiray u socotaa maanta wixii ka dambeeya rabbigeed hortiisaa la geynaa maanta wixii ka dambeeya dhibaato fara badan ayay la kulmi doontaa laa ilaaha ila allah dheh ayaa la yidhi laa ilaaha ila allah ayaa agteeda lagula celceliyey ileen horay ayay u dhihi weysay ayadana maca daalika agteeda waa kari waayey kelimada tawxiidkaa agteeda waa soo qaban waayey dadkii meesha goobjooga ka ahaa ee xaadiray waxay dhaheen afkeeda waxaan ka weynay hadal aan ahayn labadii walaalo ah ninkii lacag leh ayaa weyn sidaa ayadoo dhahaysay xayaatada uga baxday waa suu'ul khaatima labadii walaalo ah kii lacag lahaa weyn ayay ku celcelinaysay taasaa diin u ahayd nafta ayaa uga baxday ayadoo heesaysa ayaa la dhaqay ayadoo heeskaa afkeeda ku dambeeya ayaa la qaadoo qubuurta loo daadihiyey ayadoo afkeeda uu ku dambeeya heesaha ayaa qabriga la dhigay ayadoo heesaysaana laga soo bixin doona waciyaadu billaah sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi qof kasta waxaa lagu soo bixiyaa calaa maa maata calayhi wixii uu ku kor dhinta dushiisa war walaalayaalow idinkoo heesayaa laydin soo bixinin ee heesaha joojiya qalbi madoobaad ayuu leeyahay qalbiga diin alle iyo heese islama galaan ee aad iyo aad u dadaala oo rabbigiin ka cabsada ilaahay asagoo noo tilmaamaya khatiirada iyo khatarta heesaha ay leeyihiin dhibka iyo mashaakilka heesaha ay leeyihiin iyo sida uu nooga digayo fiiriya allah subxaana